in kala soo hadlayaa gurigii uu ku dhashay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo muuqata wali waxa ka muuqda raadkii guriga oo asalkiisa ahaa oo ahaa Cariish degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaanu ku sugannahay guriga sidoo muuqata hadda waxa lagu dhex iibiyaa qalabka dhismaha waana dhismo qadiimi ah oo aan waxba laga bedelin sida loo dhisay مسؤولينتا iyo dadka reer Jalalaqsi ayaa noo sheegay in madaxweynuhu uu muddo ka maqan yahay degmada Jalalaqsi oo soo booqan xiliyadii kala duwanaa ee uu madaxweynaha ah taasi oo ay shacabku aad markaasi uga niyadjabsan yihiin in madaxweynahoodii degmadoodii ku dhashay uu soo booqan waayo isagoo oo degmooyin kale booqanaya hadda waxaan taaganahay afaafka hore ee guriga waa gurigan sida idin muuqata waxa hadda milkiyadiisa iska leh Nuur Shooriye Afrax oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 29kii ka siistay lacag oo noo sheegay in 20 milyan oo shilin Soomaaliya ay gaareysay waxa uu nala wadaagay in uu gurigan markii uu la wareegay oo madaxweynaha ugu tagay Muqdisho kadibna uu u sheegay inuu doonayo guriga inay ka gataan isaga iyo walaalihiis ayna ku wargeliyeen inay u baahan yihiin oo ay aabahood ugu dhisayaan masaajid